السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعبد الرشيد علي شيخ محمد وي. waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaaliyey hal qodob oo ah hal qodob oo ah hal qodob oo ah gumaadka Soomaalida. gumaadka Soomaalida ku socda oo la gumaadayo iyo garasho xumada cadowga godka ku ridaya aysan garanayn oo ay garasho xun tahay Soomaalidu. halkaas qodob baan caawa ka hadlin, waxaanan ku halqabsan Xayaat Hotel, hoteelkii Xayaat ayaan ku halqabsan. qolo anigu aan ka dhashay oo reesiya Xuseen la yiraahdo caabud waaq caawa tigniko wada saaran oo le caabud waaq baan digada ka dhigaynaa waan baabi'inaynaa. qoladaasna markaan warka ka baxayo wax yar baan ka taaban. hotel Xayaat dad badan baa ku dhintay oo Soomaali ah. qaar badanna waa ku dhaawacmeen. meel kasta oo Soomaalida ahna dagaal iyo xabad iyo dhimasho iyo dhaawac baa ka socda. waayahay warkeenna waxaa saldhigu ah aayaddan qur-aanka qaala tacaala in allaha ya'muru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurbaa wayanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi yacidukum lacallakum tadakaruun. waxa ugu wacan oo gumaadkaas waxyaalaha ugu waaweyn oo loona gumaadayo ayaduna isku gumaadayso, loona garan layahay cadowga qabriga iyo godka ku sii wada oo cadowgeeda oo gumaadaya inay fahmi weydo oo garan weydo waxaa ku kalifaya waa cadaalad xumo wey. cadaalad xumo ayaa saldhig u ah ama lafdhabar u ah. ilaahna muxuu yidhi in allaha ya'muru bilcadli, ilaaha cadaaladda ayuu amrayaa dadka iyo bani aadamka. haddii marka cadaalad la waayo waxay noqonaysaa dhibaato fara badan ayaa dhacaya oo aakharo uu qofku wax badan ka shallaayo, adduunyadana wax badan uu ka shallaayo. Soomaalidu meelay joogtaba haddii cadaaladda ku soo dhowaan lahayd oo cadaalad intii tabarteeda ay fulin lahayd, wax badan ayaa u qabsoomi lahaa. dhibaato badan oo hadda dhacaysana ma dhacdeen. warkayga horta ma imaqlaysaan mise ee maqlaysaan oo cod ma jiro mise cod waa jiraa? bal ii soo qora, waa ku maqalnaa. ilaa hadda 2 qof baan u jeedaa anigu ku jirta. marka labadiina bal soo qora, may maqlaysaan? qof saddexaad baa soo galay, may maqashaan? codkayga midi soo gaarayaan mise cod ma jiro? bal ii soo jawaaba. intaana warka bilaabin may maqlaysaan mise codkayga idima soo gaarayo oo cod ma jiro?
waxaan u fahmay marka codku waa jira waa yahay haa waa jira waa mahadsan tahay hotel xayaat dhimashada iyo dhaawaca al-shabaab waxay sheegteen 40 inay dileen 70na ay dhaawaceen idaacaduhuna waxay sheegayaan inay dhimashaduna 40 ka badan tahay dhaawacuna uu 100 ka badan yahay intii hotelka xayaat la galay ilaa markii hawl soo dhamaatay waan dhageysanayay qalabka warbaahinta iyo facebooka iyo youtube-ka waxa laga sheegay riboorada ay Soomaalidu ku hadlayso waan dhageysanayay beesha qaladka ugu weyn oo ka dhacay waxay ahayd qaabkii dawladdu u maamushay in dadka hotelka ku jira iyo hotelkaba qaabkii loo badbaadin lahaa farsamadii ayaa dawladdu ku qaldantay marka waxaa soo baxday ceeb ah dawladda xasan maxamuud iyo xamse cabdi bare inaysan lahayn arrimaha degdega markay yimaadaan oo emergency-ga ah ciidan diyaar ah iyo bar hogaamin oo ciidanka laga hogaamiyo dad khuburo ah oo expertise ah oo amniga expertise ku ah oo dadkii dhismo gala hotel weyn gala ama aeroport qabsada ama wado tareen oo weyn qabsada ama ceelal shidaal qabsada meelaha muhiimka baraha muhiimka madaxtooyada qabsada meelahaas oo kale iskuulada qabsada jaamacadaha qabsada masaajidada qabsada meel dad badan warshad dad badan ka shaqeeyaan qabsada dadkii arrintaas hogaamin lahaa si dadkaas meesha looga saaro oo shacabka oo meesha ku jira hantidaas dadweynahana loo qasaaradeeda intii la yareyn karo oo la soo koobi karo la soo koobo qolada meesha weeraraysa amniga wuxuu dhimaysa oo dadka laynaysa oo dhismaha burburinaysana in waqti gaaban oo badnayn lagu soo afjaro oo wax la dilay iyo wax la dhaawaco iyo wax la qabto laga soo dhigo marka waxaa muuqatay fashil weyn oo xagga amniga dawladda xasan maxamuud iyo xamse cabdi bare inaysan lahayn bar hogaamin oo laga hogaamiyo arrimahaas emergency-ga iyo ciidan khaasa oo meel ku xaraysan oo heegan ku jira oo markii loo baahdo baabuurta fuula meeshaas taga dadkaa shacabkaana ka badbaadiya hantidaa shacabkaana badbaadiya qolooyinka dadka laynayana laaya soona qabta waxaad dishaan iyo waxaa soo xirtaan iyo meyd iyo dhaawac iyo dhimasho kaga soo taga inaysan lahayn ma ciidan la-aan baa jirta maya ciidankii waa joogaan commandos baa joogto belidoogla degan waxaa jooga gorgor baa jooga oo meelo badan degan waxaa jooga nimankii la oran jiray nabad sugudii baa joogta waxaa jooga nimankii haramcad la oran jiray oo shaqadanba iska leh beledka wixii gudihiisa ka dhaca iyo meelihii ay galaan dadka laynaya nimankaas oo tababarkooduba ku saabsan yahay guryo la galo wixii gala si looga soo saaro oo xukumo ninkan la yiraahdo farxaan qaroole booliskii kalaa jooga militarigii kalaa jooga intaas oo ciidanahoo joogta ayaa haddana hotel xayaat ama xayaat hotel ayay waxay qaadatay inta la sheegayo in ka badan 24 saac in dhowr wiil 24 saac ay lambar 4 haystaan hotel ku yaala oo xuduntii iyo bartamihii dalka ah
waxay caddaynaysaa fashil amni oo baahsan oo weyn iyo nidaam darro iyo isdhexyaac iyo maamul la'aan iyo hoggaamin la'aan inay ka jirto madaxtooyada, inay ka jirto ciidamada, inay ka jirto maamulka xasan maxamuud inta ugu sarraysa, ama shacab ha noqdeen ama ciidamo ha noqdeen. dal dhan caasimadiisii oo madaxweynihii baraamisarkii ay joogaan, oo baarlamaankii uu joogo, oo wasiiradii joogaan, oo ciidamadii madaxdii u sarraysay oo jaalamadii joogaan, oo khubradii iyo exbertiiskii dalkao dhan uu joogo, in wiilal dhowr 24 saac in ka badan lambar 4 hotel ku yaal haystaan, dad ka badan 70 ku dilaan, dad 100 ka badanna ku dhaawacaan, madaxweynihiina oo caasimadii madaxtooyadii fadhiyo oo meesha uga soo lugeyn karo oo lug ku soo gaaro, intuu ka soo lugay madaxtooyada oo lug ku imaan karo. marka waxaa muuqata hoggaaminta iyo madaxweynimada xasan maxamuud inay laangaro tahay, laangare, inay jiis tahay, jiis waa jiis. hoggaamintaadu xasan maxamuudo waa jiis laangaro wey, waa hoggaamin laangaraa wey, waa hoggaamin jiisa, hoggaamin calaan ah wey, calaan qof lug ka jaban ama 2 lugo ka jaban oo kale wey hoggaamintaadu. 3 bil baa kuu dhammaatay oo Facebook iyo shacabka Soomaalida aanu sheegay madaxweynaha bal u kaadiye, bal 100 bari ha gaaro, bal 4 bilood ha gaaro, bal sanad ha gaaro, bal 2 sano ha gaaro. waxaad awood u weyday adoo caasimadii iyo madaxtooyadii filla Soomaaliya dhex fadhiya 24 saac dhowr wiil inay lambar 4 hotel ay haystaan. intaasaad xallin weyda xasan maxamuud oo markay labaad oo madaxweyne aad noqonaysa ay tahay, oo aan hadda lagugu cududaarayn madaxweynuhu markii koowaad weeye, oo shaqada ma yaqaan, aadan cududaarkaas lahayn. ma hal janan oo military ah iyo hal janan oo booliis ah iyo hal janan oo nabad sugid ah iyo hal janan oo asluub ah iyo hal janan oo madaxtooyadaada ka socda, ma 5 janan baad xafiis ugu geyn weyday? ma sarkaal ka socda nabad sugidda oo informationka meesha siiya ayaad oran weyday ninka nabad sugidda haysta u dir nimankaa janamada? ninka royaloo ka socda asluubta u dir nimankaa janamada? nin militariga ka socda u dir nimankaas? ciidamada oo dhan min hal korneyl in laga soo diro oo janamadaas la shaqeeya, oo wixii janamadu u baahdaan in laga soo fuliyo, militariga ka soo fuliya, booliska ka soo fuliya, asluubta ka soo fuliya, nisa iyo nabad sugidda ka soo fuliya. operationkana hal ciidan keliya loo xil saaro. tusaale ahaan oo kale nimanka ku shuqul leh oo haramcad iyo farxaan qaroole loo xil saaro oo la yiraahdo hotel xayaat, adinkaa ku shuqule ciidan wixii adinku aad dalbataan, sida gaashaan ama alfa group nimanka la dhaho kale oo ku takhasusay si gidaarada loo burburiyaa, oo explosive iyo haysta qalabkii lagu burburin jiray qarxinta. waxaa u baahataan bartaa hoggaaminta janankaasaad wacaysaan. janankiina booliska ka socda iyo nin korneylo adinka booliska adinka socda ayaa bartaa hoggaaminta tegaya. waxa uu soo bixiya jananka oo burashka u sarreeya oo meesha xaafiiska barta hoggaaminta fadhiya ayaa korneylkaas kuugu soo dhiibaya. adiga farxaan qaroola waxa u baahantaana korneylka usoo dhiibaysaa, bartaa hoggaaminta ayuu u tegayaa. markuu tagana jananka booliska fadhiya ayuu warka u dhiibayaa. jananka booliskuna
jananka ugu sarreeya oo burushka mas-uulka ka ah oo madaxweyne u xil saaray oo barta hogaaminta fadhiya ayuu warkii u sheegaya. sidaasaa marka janankii oo burushka iyo janamadii kaloo la shaqaynayey oo midba ciidan ka socdo ayaa marka amarkii lagu soo bixinayaa. sidaasaa meeshii dadweynihiina lagu soo badbaadinayaa, hantidiina lagu badbaadinayaa, qoladii meesha qabsatana loo laynaya. janankaasu marka waa janan nooce ah? waa janan yuusuf talan cali oo kale janankii dhiman jiray oo lambarfa lagu dili jiray oo joogi jiray hogaanka waagii Soomaaliya dowladda Maxamed Bare hogaanka howlgelinta joogi jiray way. oo burushinadan oo kale waxaa iskale saraakiisha howlgelinta iskale. oo howlgelintu waa cilmi gooniya, waa subject gooniya, waa taqas gooniya oo military ka mid ah way oo la barto. oo burushinadan oo kale waxaa loo diraa janaamada iyo korneylada, waxaa loo diraa expertise-ka ku ah waxaan la yiraahdaa howlgelinta. ninka howlgelinta waxaa laga rabaa aqoontii howlgelinta, waxaa laga rabaa way aragnimadii, waxaa laga rabaa magaalada inuu luqluq u kala yaqaano, luq kasta iyo xamar meel kasta wada kasta iyo guri kasta inuu garanayo way. oo hadduusan u aqoonin xataa uusan life u garanayn waa inuu maab ahaan u yaqaana, ama sarkaal luqluq u yaqaano xamar ku dhashay waa inuu ag fadhiya. laakiin jananow janan ma tahay, arrintaasoo kale looma dhiibo, shuqulna kuma leh. waxaa iska leh dadka expertise-ka ku ah howlgelinta. yuusuf talan cali oo kale, korneelkii cabdirasaaq isaaq biixi oo kale oo ayaan uu dhiman jiray, korneylkii la oran jiray axmedey kasaaro oo waa hore inuu dhinto u malaynayo. raggii hore oo janamadii iyo korneyladii hore ayaa raggaan aan magacooda tirinaya garanaya. dadka noocaasa ayaa oo burushkaasoo kale meel la fariisiyaa oo loo dhiibaa la dhahaa hawshaas qabta. laakiin hadda sida idaacaduhu sheegayaan iyo qalabka warbaahintu, ciidamadii oo dhan baa isugu yimid hal hotel ayagoo habqan ah oo hogaamin lahayn, oo kala dambayn lahayn, oo nin madaxa aan lahayn, mid ku-xigeena lahayn, mid howlgelinna lahayn. wixii oo dhan marka way isku dhabaqday, way isku dhex yaacday. waxay noqotay wax cid mas-uul ka ah aan la garanayn, cid shaqadan iska leh aan la garanayn, cid shaqada ku habboon aan la garanayn, cid aan ku habboonayn aan la kala aqoonin. marka waxay u noqonaysaa inaan loo arkin adiga xasan maxamuuda farsamadii iyo aqoontii hoteelka lagu xallin lahaa arrintiisa inaan ciidan la-aanna ku haynin, aqoon la-aanna ku haynin, laakiin siyaasiyan in wax u qaldan yihiin. sidaasaa lagu qaadanaya. ilaan ciidan la-aan meeshii kama jirto, aqoon la-aanna kama jirto, qalab la-aanna kama jirto. marka inaad wax siyaasadaysay oo barnaamijku uu siyaasadaysan yahay oo daacad adan ka ahayn, saasaa shacabku u macnaynaya. taa macnaheeduna waxay noqonaysaa in shacabku kugu calaamadiyaan nin shacabkiisii oo la laynayo aan inuu badbaadiyo aan diyaar u ahayn, oo siyaasiyan u diidan in shacabka la badbaadiyo. marka waxay noqonaysaa kas madaxweyne shacabkiisii kas u laynaya oo gumaadaya, oo asagu in la gumaadaba diyaar u ah, ama amarka bixiyey inuu la gumaado. saasaa lagu arkaya. laga yaababa inaad badaacad ka tahay oo allaha alle ka yahay, oo waxaan markii ay qasmeen oo lameen oo kuwii wararka kuu keenayey ay wixii wareeriyeen oo ayagu ay wax jaaho wareerinayaan, inaad adigina la jaaho wareertay oo meel wax ka qabata weyday. laakiin barnaamijkan oo kale markuu dhaco shaqadiisa lama bilaabo xasan maxamuudow iyo xamse cabdi bare. shaqadaanu waa shaqo horey loo sii diyaariyo. budget baa lagu bixiyaa, lacag baa lagu bixiyaa, waqti baa lagu bixiyaa,
waa janamo diyaar ah bar hogaamin leh isgaarsiintooda leh ciidankooda leh shidaalkooda leh u diyaar ah 24 saac u diyaar ah caasimadda haddii meel muhiima uu cadow qabsado inay daqiiqado kooban ay jawaab degdega ka bixiyaan waa dad adiga xataa inaad kormeerta lagaa rabo saacad walba aad wacdo diyaar ma tihiin haddii berri ama habeen dambe ama lee beri kadib magaalada aeroboorkoo kale la qabsado imise daqiiqaad ku gaari kartaan aeroboorka imise idinku qaadanaysaa inaad aeroboorka aad ciddii dhibaatada waday oo aeroboorka weerartay aad laysaan ama soo qabataan laakiin aeroboorkii markii la qabsado ayaa la raadinayaa janamo ayaa la raadinayaa korneylo ayaa la raadinayaa ciidan markaas haddana hal ciidan la diri maayo 10 ciidan oo kala kaana oo mid meel ka yimid oo isaqoonin oo mid military yahay oo mid asluub yahay oo mid boolis yahay oo mid nisa yahay oo isgaranayn baa la isku horkeenayaa niman aan weligood wada shaqayn oo isaqoonin baa qoorta la isku gelinayaa hadda waxay noqonaysaa marka ma shaqadii runta ahayd oo aeroboorkii iyo meeshii la galay in la badbaadiyo miyaa laga shaqeeyaa mise dadkii shaqada qaban lahaa baa la diyaariyaa ilaan waa laba shaqe inaad diyaariso dadkii hawsha qaban lahaa waa waqti baa loo baahan yahay in dadkan loo gurmado la haysan oo xabaddu ku socotona waa shaqo kale hal marna lama wada qaban karo bal marka adiga xaasi maxamuuda iyo madaxtooyadaada iyo prime ministerkaaga iyo waxa kula taliya bal haddaadiina lahayn dadkaas bal haddaba abuura waxaad abuurtaa adiga xaasi maxamuuda xaafiis la yidhaahdo xaafiiska arrimaha degdega ah nin jananana madax uga dhig dhowr janan oo ciidamada ka socda militariga booliska nisa asluubta oo ninkaa la shaqeeyo ku-xigeenaana u samee korneylo ka socda ayaguna ciidamada oo meesha obreshka laga fulinayo iyo xaafiiskan emergencyga u dhexeeyana samee ciidan u khaasa oo markii hotel ama aeroboor ama meel muhiima la galo ayaga keliya ku shuqul leh u cayin ayagana hadda idaacadu waxay sheegayaan haram cad ayaa u tababaran oo loogu talagalay iyo farxaan qaroole ama haram cad iyo farxaan qaroole maadaama u tababaran yihiin faraha uga qaad ama ka bedelo ciidan kale oo ayaguna tababaran oo shaqada qaban kara u xilsaar meesha kadibna markii hotel la qabsado sidaan oo kale waa in ciidankaas oo la yaqaano keligood ay meesha galaan ayaga markay meesha tagaan wixii ay u baahdaan iyo ciidankii u baahdaan iyo farsamada u baahdaan ayagaa soo sheeganay deedna marka bartaa hogaaminta ayaa loo gudbinaya leeyahay baahidaasay qabaan nimankii janamadaas barta hogaaminta fadhiya ayaa markaa ka jawaabaya haddaadan saas yeelin xashi maxamuudow shacabku waxay qaadanayaan oo meel kugu qorayaan madaxweyneba inaad ahayna inaad tahay nin shacabka inuu gumaado meesha u soo fariistay oo dadka asagu laynayaba deedna markaa waxay noqonaysaa in lagaa kala tago marka oo madaxweyne 4 sanaad sugaysaaye aadan 2 sano ama 3 sanoba gaarinba oo qof walbaba uma taqaan dhinacuu raba iska aado xaafiiska cidlaan aad aragto haawanayo oo keliya ku soo hartay ilaa hadda qof lagu qancin karo oo Soomaaliya ma jiro madaxweynihii filla Soomaaliya fadhiya laba dhowr wiil baa haysatay 24 saac ka badan lambar 4 hotel ku yaala 70 ka badan baa dhimatay maxaa ku raada 100 ka badan baa dhaawacantay madaxweynihiina filla Soomaaliya fadhiya wuuna xallin waaye prime ministerkii filla Soomaaliya fadhiya wuu xallin waaye janamadii iyo ciidamada dhawaa joogan way xallin waayeen ilmo yaro 10 jira laguma qancin kara xaasi maxamuud arinta waxaa wadanka kula jooga janamadii dawladii aadan cabdulla cismaan ka soo shaqeeyay oo cabdirashiid cali sharma ka soo shaqeeyay oo maxamed sabara ka soo shaqeeyay baa hadda qaar baa nool oo kula jooga xamar kula jooga korole intaa ka soo shaqeeya xamar kula jooga ama ugu yaraan kuwa dawladii maxamed sabara ka soo shaqeeyay baa kula jooga kuwa hadda shaqeeya oo xilal haya
marka lama aqbali karo oo shacabku kaagama qanci karaan adiga iyo barayim sarkaaga iyo janamadaada loogama qanci karo dal dhan oo caasimaddiisii lambar 4 xuduntii iyo lafdhabartii aeroboorkii u muuqata ayaa 24 saac in ka badan dhowr wiil haystay qof lagu qancin karo oo yeelaya ma jiro xashi maxamuud marka bal inta dib isugu noqotid adiga wixii kula taliya barnaamijka ayuu mar dambe yuusa soo noqon mar dambe yuusa dhicin lacagtuna hadday xataa badato oo markaa janamadaas ururisa ay ku dhahaan kharashku waa badan yahay waxaa ka muhiimsan dadka dhimanaya iyo dadka dhaawacmaya iyo hantida shacabka oo burburaysa ayaa ka badan hadda hotel xayaat imisa kharash ninkii iska lahaa oo meesha lagu bedeli laftigiisii xataa imisa kharash ayaa ninkaa ka galay hotelka naftiisii ku dar intii qof oo meesha lagu dilay ku dar intaas iyo budgetka aad siinaysa sanadkii 100 jibaar hotelkaas inta ku baxday iyo inta dad ku dhimatay iyo maalka ku baxay ayaa ka badan wax hal sano ma taqaanaa dadkaas shaqada qabanaya degdeg ah budget loo qaybiyay wax weyn maaha xashi maxamuud shacabkana laga qaadaya oo lacag jeebkaaga aad ka bixinaysa maaha waa canshuurtii shacabka laakiin canshuurtii shacabka waxaa la rabaa in loo qoondeeyo loo maamulo dad expertise oo khuburo ah iyo hal ciidan oo arrintaa ku shuqul leh arrintaas intaasaan kaga tegey waxaan tegayaa gumaadka lagu hayo shacabka Soomaaliyeed oo hotelkaas hadda ugu dambeeyo xayaat waxaad ka soo bilowdaa Hargeysa ka soo bilow asbuucii hore dhowr qof baa ku dhimatay banaanbaxyadii Puntland iyo Boosaaso wixii ka dhacay waa la garanaya inta jiro lagu diray dhuusamareeb iyo gurceel intii lagu diray wixii dhintay waa la garanaya bacad weyn iyo wixii ka dhacay iyo hobyo iyo xarar dheer inta soonahaas waa la garanaya dhinacan hadda xudur iyo inta u dhaxaysa ma taqaana Soomaali galbeed wixii ka dhacay 2 asbuuc ka hor waa la garanaya gobolkan Jubbada Hoose waxa leeyahay shabeelada hoose oo marka ah iyo baraawe ila afgooy inta u dhaxaysa inta ku dhimata asbuuc kasta waa la garanaya Kismaayo gudaheeda inta Axmedoobe uu ku dilo iyo caruurta uu joogto qoryaha wata waa la garanaya diyaaradaha gado ay Kenyatta ku duqeeyaan dadka reegado waa la garanaya marmar Jubbada Hoose iyo Bu'aali xataa diyaaradaha Kenya u sii gudbaan waxay arkaan Soomaaliya geel iyo lo iyo dad noolba ay laayaan Soomaaliya xamar inta ku dhimata bil kasta ama asbuuc kasta ama bil kasta ama 3 bilood ama sanadkii caasimadda laftigeeda waa la garanaya jawhar inta hadda ku dhimata iyo qaraxyo waa la garanaya beledweyne inta qarax iyo dhimasho ka dhacday waa la garanaya teedaan iyo tooradmoog baliyada ilmo heesood muqokori iyo maxaas illa ma laga soo gaaro buulo bardiye jalaqsi inta al-shabaab hadda macawisley ay ku leysay ama al-shabaab macawisley u laayay waa la garanaya waxa laga soo bilaabay matabaan illa ma lagu yimaado meeshii ay degi jireen baadacaduhu maxay ahayd oo u dhaxaysay jawhar iyo buulo bardi jalaqsi illa ma jalaqsi ayay macawisley iyo al-shabaab ku dagaalamayaan macawisley waa Soomaali al-shabaab waa Soomaali waxaan hotel xayaat galay waa al-shabaab waa Soomaali waxa la leeyahay waa Soomaali Soomaali galbeed waa Soomaali kuwa galay oo al-shabaab waa Soomaali wax xamar ku dhimanaya meel kasta waa shacabkii Soomaaliyeed waxa leeyahay waa dad kale Soomaali ah laakiin qorshaha lagu leeyahay dadkan Soomaaliyeed waa qorshe shisheeye iyo ajnabi iska leeyahay way maaha qorshe Soomaali Soomaalidu waxay fulinaysaa dilka iyo qaraxa bay fulinaysaa waa shaqaale laakiin maskaxda iyo qalabka iyo dhaqaalaha iyo isgaarsiinta iyo telefoonada iyo informationka waxa iska leh shisheeye maxayna rabaan shisheeyuhu waxay rabaan laba waxyaalood
kow khayraadkay rabaan shidaalka iyo gaaska iyo macdanta uraniumka inay qaataan waxay kaloo rabaan qaarka labaad waa Itoobiya Kenya dhulka inay qaataan bay rabaan marka Itoobiya dhulkay rabtaa si dhulku ku heshana Soomaalidii qaab kastoo lagu dhameyn karo ayay ka qayb qaadanaysaa Kenyaatu dhulka Soomaaliya rabaan ilaa marka qaab kastoo Soomaalida lagu dhameyn karo way ka qayb qaadanaysaa qolada xan la fadhiyo cadaanka reer galbeedka iyo waxay carab keensadeen iyo madow ay noo keensadeen 28 kun oo Ugandis u badanna ayuuna waxay rabaan shidaalka iyo gaaska iyo uraniumka macdanta si kastoo Soomaali lagu dhameyn karo ayay ka shaqaynayaan gacmaha la adeegsanayo iyo lugaha la adeegsanayo iyo maskaxda la adeegsanayana waa Soomaali ayaa la isticmaalaya oo maxaa la leeyahay Soomaali kala soo laa waayahay haddii gumaadka marka nagu socdo 32 sano aan garan laanahay annaga Soomaalida in shisheeye iyo cadow shisheeye ayna gumaadayaan godkii iyo naxashkii iyo qabrigii nagu wadaan annaguna iska garan laanahay caqliganay ku soo ururay madaxweyne iyo filla Soomaaliya seebaan ku helnaa annaga qabiil hebel la dhaho aniga qof hebel la dhaho seen madaxweyne ku noqdaa aniga qof hebel la seen prime minister ku noqdaa aniga qabiilkaygu seen madaxweyne ku noqdaa aniga qof ahaan dollar see ku helaa aniga qof ahaan qabiil ahaan dollar see ku helaa anigu qof ahaan hub see ku helaa anigu qabiil ahaan hub see ku helaa anigu qof ahaan dhul imisaan qaataa aniga qabiil ahaan dhul imisaan goosanaa mashruucaas shisheeya iska leh Soomaali ma laha laakiin shaqaalay ka tahay maxay ku dhamaanaysaa waxay ku dhamaanaysaa in qof qof loo dhamaado in qabiil qabiil loo dhamaado in koox koox loo dhamaado marka dambana dhulkii kaliya uu meeshii ku soo haro Soomaalidiina qabriga wada galaan asxaabul qubur inay noqdaan oo la yiraahdo ummad la oran jiray Soomaaliya ayaa jiri jirtay gacmahooda ayay isku dhameeyeen midna wax buu dilayaa midna waa la dilayaa yaa ka shaqeeyay reer galbeed yaa ka shaqeeyay carab yaa ka shaqeeyay afrikaan oo maxay ka rabeen waxay ku yaaleen bariga Afrika waxay lahaayeen badda ugu dheer Afrika waxay ahaayeen dad hal diin leh oo hal luqad leh oo isku hal nasab oo aabiyo hooyo wada dhaleen oo isku eg dhul weyna way haysteen laba webina waa haysteen bad dherer badanna waa haysteen kadib shisheeya isku diray ayagu isku dhameeyay wuxuudii khayraadaha dhulka ku jirana iyo malaygoodiina waa qaateen dhulkiina Itoobiya iyo Kenya ayay ku wareejiyeen oo maxay u wareejinayaan waa Kiristaan Kenya Itoobiyana waa Kiristaan waa diin ahaan waa dagaal diineed weey Soomaaliduna waa muslim oo lagama rabo inay diinta Afrika ku soo fidiyaan lama rabo diintu xagga Carabaha Yemen inay ku ekaataa la raba inay berbere iyo Djibouti soo gaarto lama rabo iyo Calula iyo Qandala looma baahna gaaladu uma baahna sidaas loo dabar goynaya marka oo loo dabar jaraya ayadiina way iska garan la adahay way fahmi la adahay maxaa la yiri qufacday laakiin meel laga gaaray ma oga 32 sano waa la dhameynaya laakiin cidda dhameynaysa wali may garan qabriga loo wado iyo naxashkiisa ay saaran tahay maysan garan hadafka laga leeyahay in la gumaado ayadoo la tirtiro maysan garan tabeella cidla ayaa loo dhajiyay oo la yiraahdo reer hebel qabiil hebel 4.5 federal government koox diimeed al-shabaab اتحاد إصلاح دم الجديد أسادعون بالحق سلفية جديد أهل السنة والجماعة صفة ما تروض أديك وحاربت كوشة حزب إسلام وفرقة دين ميديو حبت كرب إني كرسي كو قبصدان مدحوين نمو هدونا دولار كو هلان أو هدانا أيوغو فرقة دين ميديا هدانا قبيليسان odayaal wallo raah oo jabhada ah oo qabiil ah oo SDF ah oo SNM ah oo USC ah oo SBM ah
oo kursi iyo madaxweyne ku raba iyo dollar qabyaalad iyo reer hebel kuwa jawaasiisa oo gaal kasta daba ordahaya oo lacag isiila waa kuu soo jaajuusi xataa kacbaday soo jaajuusayaan xataa qabriga nebiga soo jaajuusayaan qabriga nebiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam sallallahu alayhi wa alihi wasallam qabriga nebiga hadii la soo jaajuus waa la baxaynaa nebiga la baxaynaa jirkiisa soo jaajuus lacagta qaado Soomaaligu waa soo jaajuusaya kacbada waa dumilaynaa lacagta qaado soo jaajuus oo soo jaajuusaya Soomaaligu heerkaas ay Soomaalida maraysaa waa hoosayn meesha la gaaro qof insaan u gaaro meesha ugu liidata way bay Soomaalida maraysaa xagga jaajuusnimada bal marka dadka wixii wax garanaya oo diin ku hartay oo iimaan ku hartay oo damiin ku hartayo waxaad ogaataan shacabkan Soomaaliyeed niman gaala la yiraahdo oo reer galbeed la yiraahdo ayaa Carab iyo Afrikaan u samaystay in la gumaado ayagana la isku gumaado oo midba mid inuu dilo loo diyaariyo in marka talo la isugu yimaado dal iyo dibadba arintaas 32 sano ka badan lama sii wadi kare la istaajiyo la xakameeyo dhexda laga qabto la caymiyo shacabka Soomaaliyeed la caymiyo diinta islaamka la caymiyo dhulka Soomaaliyeed la caymiyo sharafta Soomaaliyeed la caymiyo hantidaas ma guurtada oo malay leh oo shidaal leh oo gaas leh oo macdan leh oo uranium leh oo bad leh oo biri leh oo labuube leh in la caymiyo intii wax garanaysaa intaasna hadalkii guud baan kaga tagay qoladan anigu aan ka dhashay Reesiya Xuseen oo waxaan arkay caawa baabuuro tiknika saaran tahay caawda banaanka soo dhigtay oo waxbaan leynayna ma qan 6 habeen ka hor mise 5 habeen ka hor wax un toddobaad ka yar baan u malay inaan ka hadlay degmada Caabudwaaq iyo gudoomiyaha degmada Caabudwaaq iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo deegaanka baan si faahfaahsan uga hadlay caawa waxay maraysaa in qoorqoor ay tageen oo madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkii Cali Daahir Ciid iyo wasiirka arrimaha gudaha Cabdiwaayeel kadibna ay yiraahdeen council baa la qaybsanayaa qabiilkan Reesiya Xuseen anigu aan ka dhashana aysan arintaa ku qancin marka Reesiya Xuseen waan u mahmaahin qoladan reediinna waan u mahmaahin qoorqoorna asagana waa la talin Reesiya Xuseenow waan idin mahmaahin waxaan idinkugu mahmaahin 32 sano ayaa shacabka Soomaaliyeed xabad ku socotay cadow iyo gaalo ay u diyaariyeen waqti hore way isdhamaysay intii ugu dambeysay hadda soo hartay oo Soomaalida 32daas sano adinka Reesiya Xuseen waxaad ka mid tihiin galmudug Soomaalida degta dadkii ugu dagaal yaraa ugu dhimasho yaraa ugu rabshada badnaa dagaalkii hawiye iyo daaroodka oo 91dii dagaal ka dambeeya maadiina gelin shaqadaasna aniga iyo odayaal kale oo ila mid ah ayaa idin hortaagnaa oo diidanaa inaad dagaal gashaan oo idin lahaa dagaalka daaya Reesiya Xuseen oo dagaalka daaya ayaan ku haynay ilaa 91dii aniga odayaal kale haddana Soomaalidii waxay u socotaa haddii rag uu soo baxo ilaahayna uu qadaro in la heshiyo in qoryaha la ururiyo in dalka shidaal la soo saaro in gaas la soo saaro in wadanku barwaaqo noqdo in laga baxo dhibaatadan iyo colaadan iyo ba'an iyo hoogan marka shaleemo dhacday Reesiya Xuseen oo shaleemo dhacday tigidkeedii hadda ha goosanina adinkoo 32 sano Soomaalidu idin ka nabad gashay adinkuna Soomaalida ka nabad galay mareexan idin ka nabad galay adinkuna mareexan ad ka nabad gasheen 32 sano kadib haddaan koynay haddaan nimid
inaad dhahdaan macno idiin samayn mayso. haddaad wax dilaysaan oo dagaalamaysaan bal shidaalkii iyo gaaskii baa la soo saarayna bal shidaalkaas iyo gaaska wax ku dila. laakiin degmo Caabudwaaq oo Itoobiya qarka u saaran iyo Wardheer oo baadiye ku taala councilkeeda iyo gudoomiye degmadeeda iyo gudoomiye degmo ku-xigeenkeeda oo saddexda hadii isku daro wax qiimo aysan lahayn oo wax dhaqaale lagu heleen oo wax magaca lagu heleen qof nool oo muslim ah oo Ilaahay aakhira ku wadiinayo inaad ku disho diinna maahan iimaanna maahan aqalna maaha damirna maaha. waxaa samaysaan marka mahmahdii aadan dalab ugu mahmaahay odaga Cumar Maxamuud mahmahdii oo kala caawa ku dhicinina. waxaa arkaya wiil magaciisa lagu soo qoray Cabdulqaadir Cawil Cali Leysir oo qori jeena qaarsan oo dhahaya dagaal baan diyaar u nahay anaga Reesa Xuseen qorqorna ka baxo Caabudwaaq councilkana san anaga Reesa Xuseen aan rabno hadii la sameyn waayo waxa la waxaarna waa leynayna. Cabdulqaadir Cali Leysir sheekadan waxay sheegaysaa 1860 iyo meelahaas dhowrkii dagaalkii Dayaxweerar xilligaas oo dhacay oo Reesa Xuseen Dayaxweerar dagaalkii lagu laayay oo lagu gumaaday wuxuu dhacay qiyaasii 1865 intii u dhaxaysay. dagaaladaas Dayaxweerar intii ka horeysay sanadihii ka horeysay ayaa aadan dalab oo 30 wiil oo Reesa Xuseen wata ayaa wuxuu weeraray dhowr boqol oo Cumar Maxamuud oo geel shubanaysa meel ceelal ah ayuu weerar ku dhuftay. waa la soo qabtay 30kii Reesa Xuseen. waxaa la dhowr boqol oo Cumar Maxamuud inaad adinkoo 30 Reesa Xuseen weerartaan aqligaas yaa idin kugu taliyay. waxay dhaheen odagan aadan dalab odagii Cumar Maxamuud wuxuu yiri Reesa Xuseen waligiin aadan dalab ha idin taliyo waxaana idin layn mayno orda guryihiin aadan dhaafo. waa iska soo Cumar Maxamuud ku soo fasaxeen. Cabdulqaadir marka Cawil Cali Leysir hadaa tiraada Caawaq baan weerarayaa reediinaan weerarayaa Caawaq baan weerarayaa Wagardhac baan weerarayaa maxaad ku weeraraysaa gudoomiye degmo Caawaq iyo ku-xigeen iyo gole deegaan. waa aqligii ninka Cumar Maxamuud ugu mahmahay aadan dalab weyn. marka waxaan ku leeyahay adeer kada xabad ma ahan gudoomiyaha degmada Caabudwaaq iyo ku-xigeenka iyo councilku waa hadal inta gogol dhigatid qorigaagana soo dhigatid guriga soo dhigatid oo gogol dhigatid qorqor iyo Cali Daahir Ciid iyo ninkaliya Cabdi Waayeel u yeeratid odayaal Reesa Xuseen oo aabaha Cawil Cali Leysir ku jira u yeeratid waxaa tiraahdaa in la garamo oo councilka anaga Reesa Xuseen kuma qaacsi wax loo qaybiyay hana la kala garamo sidaasa arinta xalkeedu waa saas xabad maaha adeer. mahmaadii Reesa Xuseen hadaa intaa kaga tago reer diiniyo waan idin mahmaahin Wagardhacna waan u mahmaahin labadiinaba waa idin mahmaahin. waxa Reesa Xuseen hada ka diday oo qoryaha caaw u soo gurteen reer diiniyo Wagardhaco waxa weeye inaad Reesa Xuseen dhacdaan oo gudoomiye degmada iyo ku-xigeenkii Caawaq iyo councilkii ku dhacdaan baad rabtaan oo labadiinu aad qaadataan hadaad reer diiniyo Wagardhac tihiin. marka mahmahdii awogeynu ruuxu iyo kugu mahmaahay adinka reer diiniya 1908 ama 60kii markii ceelka Garbala la qoday ayaan caaw idin kugu mahmaahin adinka reer diiniya Wagardhacna waa idin ka dabageen ayaduna mahmahda waa idin la qabtaa. sheekadan waxay sheegaysaa odayaashii nabadoonnada ahaa ayaa biyihii markii Garbala cabitaankii la bilaabay ayaa waxaa la biyaha see loo qaybsadaa. odayaashii qaar waxay yiraahdeen sida loo kala badan yahay biyaha Garbala ha loo qaybsado motor ma lahayn Caabudwaaq waagaas ceel biyood bay lahayd laakiin motor ma jirin. waxaa motorka qoday ninkii prime minister-ka ahaa Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa u qoday Caawaq Garbala iyo Siga Dheer labadaba asaga qoday laakiin Garbala horeysay oo 1958 ahayd meelahaas ilaa 60kii odayaasha ku sheegaan. waxaa bakoorada iskula baxay markii uu biyo ku diriray xaashi iyo nin la yiraahdo Cabdi Shirdoon Qiro oo reer dalka nabadoon u ahaa
bahdaaran doolana waxaa nabadoon u ahaa ninkii la yidhaahdo xaaji xaashi cabdi shirdoon qira wuxuu leeyahay biyaha sidii loo kala badan yahay ayaa loo qaybsanaya xaaji xaashina wuxuu leeyahay biyaha waxaa loo qaybsanayaa afar waaxoodkii oo anaga bahawiya biyaha mar baan leenahay adinka bahogaadeena mar baad leedihiin reer sheekh xuseen iyo celi iyo nimanka la yidhaha uurmidig iyo reer cismaanna mar bay leeyihiin habar ciisana bahogaadeen bay la qaadanaysaa saasaa biyaha loo qaybsanaya wagardhacna keligeed mar bay leedahay biyaha haddii badnaan loo qaybsado hadda reediina ugu badan mareexaanka caawaq degan biyihii o dhan reediini basaa qaadanaya cid kale ma soo gaarayso garbaloo dhan reediina la wareegaya haddii la yidhahdo afar waaxoodka laftigiisana reediini laftigiisaa qaadanaya oo afar waaxoodkiina ayagaa u badan oo laba waaxood keliya baa reediini marka laga reebo habar ciise keliya bahawiye oo waaxa maaqaan guuleed faarax iyo waxaa la raaciyaabaan u malayn iyo dhowr lafood oo kale adigu biyaha labada dhanba badnaansho ayay reediina ku qaadanayaan haddii la dhaho afar waaxood ha loo qaybsado iyo haddii la yidhahdo badnaanba ha loo qaybsado halkaa markay marayso oo odayaashii bakoro iskula baxeen cabdi shirdoon qire iyo ninkii la oran jiray xaaji xaashi ayaa nuurruxubay hadlay awowgey wuu mahmaahay mahmahdii waa tanaa caawa reediin ugu mahmaahin wagaracna waan ka dabagey wagaracna mahmada way la qabtaa oo caawa reediin wagarac ayaa isku saf ah oo inay reesa xuseen dhacaan oo guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka caawdaq iyo council ka dhacaan hadalka reesa xuseenka aan dhegeysta qaabkaasuu ila muuqda nuurruxubey wuxuu yidhi awowgey allah u naxariista wuxuu yidhi mareexaanow anigii dhegeysta labadaa nin oo reer diini oo cabdi shirdoon qire iyo xaaji xaashi biyo kuma dagaalamayaan bakoradaa iskula baxeen maaha inay biyaha garbale isku haystaan maaha xanaaqa indhuhu guduuteenna ma aha inay biyo isku haystaan adeer nuurruxubey maxay isku haystaan baa leeyi annagaan mareexaanka intanada kale inayna dhacaan oo biyaha naga dhacaan oo ayna qadiyaan ayaguna biyaha qaataan anagu iska tagno ayay ka shaqaynayaan saasay ku dagaalamayaan annaga biyaha intaan la inay qaataan ayaguna biyaha keligood qaataan reediin annagana ay aan qadno oon biyahaba ana weligana cabbin ayay ka shaqaynayaan nimankan mahmahdan waa 1958 ayaa nuurruxubey ku mahmaahay 22 agos 22 ana caawa ku mahmaahaya anoo cabdirashiid cali sheekh maxamed sida awgeed reer diiniya wagardhacow asbuuc ka hor baan anugu cawdaq arrinteeda ka hadlay iyadoo faahfaahsan intiinii maqashana waad maqasheen intiinii aan maqlin haddaba warkayga facebook ka raasada magaalada cawdaq guddoomiyaheeda iyo ku-xigeenka iyo councilka waxaa loo qaybsanayaa laba qaacido oo isku dhafan oo isku dhex qasan oo isku lamaan kow waa afar waaxoodkii aadan xaashi weeye midda labaad waa degaankii afar waaxood iyo degaanka si loo degan yahay ayaa loo qaybsanayaa taa macnaheedu waxaa weeye bahawiye balanbal bay leedahay cawdaq qayb kuma leh guddoomiyena kama hadli karto ku-xigeenna kama hadli karto council kama hadli karto wagardhac dhabad bay degan tahay cawdaq guddoomiye degmo kuma leh ku-xigeenna kuma leh councilna kuma leh guddoomiyaha degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo councilka cawdaq waxay ka dhaxaysaa bahogaadeen iyo habar ciise oo isku meel ah oo afar waaxoodkii ah iyo reer sheekh xuseen celi uurmidig iyo reer cismaan oo isku meel ah labadaas waaxood ayaa iska leh wagardhac oo waaxa oo keligeeda dhabad bay leedahay bahawiye oo waaxa iyo wixii raacana balanbal bay leedahay caabudaq waa bahogaadeen iyo habar ciise oo meel ah oo waax ah iyo waaxda kale oo reer sheekh xuseen iyo celi iyo uurmidig iyo reer cismaan intaas haddaad diidaan reer diini iyo wagardhacow ama dhabad ka imaada ama balanbal ka imaadee haddee waxay noqonaysaa wixii halkaas ka dhaca inaad adinka mas-uul ka tihiin labadiinna oo laysku daray amase hadday reer diini ay arrintaa diidan yihiin ama hadday reer diini ogol yihiin oo waxa diidan wagardhac tahay labadiinna qaybood qaybtii diidda ama haddaad wada diiddaan wixii halkaas dhibaato ka dhaca adinkaa mas-uulka ah qoorqoor baa ii soo haray qoorqoorow mahmahda nuurruxubey waa ku anfacaysaa
meesha aan sidii loo kala badan yahay ayaa waxay rabaan mareexaanka caawaq in isku dhacaan. nuruxubina waa ka mahmaahay. sidaa awgeed waxaad samaysataa saddex nin oo kula shaqaysa oo arrimaha mareexaanka kaa xigsada samayso. kow nin oday ah oo nabadoon ah oo xagga dhaqan ka socda oo mareexaan ah oo dhaqanka mareexaanka iyo sidii wax loo qaybsan jiray expertise ku ah, ninkaas samayso. nabad sugidii hore oo Soomaali nin ahaan jiray gaashaanla sare oo dadka aad u kala yaqaan, wax badanna magaalada ka yaqaana, in badanna joogay, ninkaasna samayso oo asna u yeero. nimankii xisbiga ahaan jiray xisbiga oo gudoomiye degmada iyo gudoomiye gobolada iyo ahaan jiray dawladdii Maxamed Saad Barre oo Soomaalida iyo dhaqankeeda aad u yaqaana, haddana cod kor oo yaqaana sida dadka loola hadlo, loo qanciyo, mushkiladahana expertise ku ah, si dadka la isugu keeno oo waxa isku haysa loogu qaybiyo. nin ahna raadso oo saddexda ninba waa inay mareexaan oo reer caawaq noqdaan way. nimankaasu waxay kaa caawinayaan cabdiwaayeel wuxuu kaa qaldo iyo ninkan cali daahir ciid wuxuu kaa qaldo ayay nimankaas saddexda kuu saxayaan. haddaad u baahan tahay nin shiikha ku darso oo afar ka dhigo oo asna xagga diinta kaa caawiya. shiikhaasi saddexda nin oo kale oo afartu waa mareexaan oo reer caawaqa, arrintan kala tasho. waxaa laga yaabaa cabdiwaayeel iyo cali daahir ciid inay qalloocan yihiin, arrintana ay qaribayaan oo qalloocinayaan oo ay ka rarayaan, inay caloosha ka rarayaan oo cayn wareejinayaan. oo maadaama adigu dhaqankii iyo dadkii mareexaanka aadan say wax u qaybsa aad u kala garanayn, inay ku qaldayaan baa laga yaabaa oo nimankaas arrinta aysan daacad ka ahayn labadooda ama mid ka mid a. si marka adiga aan lagu dhex istaajin dhibaato mareexaanka dhexdiisa, hadhowna adiga aan lagugu magacdarin qoorqoor baa ka dambeeya lagu dhihin. afartaa nin samayso oo arrintaa broblemaas aad kala tashato, kuuna sheega cali daahir ciid hadduu arrinta qalad wado, kuu sheega cabdiwaayeel hadduu arrintan qalad ka wado. shacabka Soomaaliyeed intaasay caawa noo joogaysaa. bal waxaan arkaynaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 32 sano kadib gumaadka lagu hayo inay iska gartaan oo isdifaacaan oo heshiiyaan oo qoryaha ururiyaan oo midoobaan oo cadowgan gumaadaya iska qabtaan. xasan maxamuud oo 3 bilood kadib ammaankii xamar ku fashilmay, bal inta u hartay inuu ninkaasna ammaanka iska adkeeyo, asagana waa arki doonaa wuxuu arrinta ammaanka xamar ka qabto. qoorqoorna wuxuu caawa ka qabto waa soo sugaynaa, waa arkaynaa. laakiin anigu Soomaaliyeed waxaan idiin sheegay in la rabo in laydin gumaado, adunkuna isgumaadaan, dhulkaana Itoobiya Kenya lagu wareejiyo, khayraadkiisana ay shirkadaha caddaanka qaataan, carabtii Afrikaankuna xoogaa balaqa loo tuuro iyo caloosh iyo madaxa. waa inoo markii dambe aan soo noqdo iyo wixii aan ka hadlahayo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.